kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idin ahaantiinba waa mar kale iyo muuqaal kale oo cajiib ah ku soo dhawaada kanaalka xogta geesko subscribe saar gambalaalka yarkaan rukumo si aan barnaamijyada markaan soo gelinaba ay kugu soo dhacaan ugu horreynba daawadayaal waxaan u ducaynaynaa dadka inta dhiban ee dhibaatadu haysato si ay uga baxaan Ilaahay nooga saaro sidoo kale daawadayaal waxaan ka codsanaynaa inaad idinkuna u ducaysaan si ducadiina loo aqbalo isla markaasina ay dadkaasi dhibaatada uga baxaan haddaba fanaanada Najma Nashaad iyo Axmed Aarsho oo tagay maalmihii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho isla markaasina show ku soo qabtay haddana uu soo wareegay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ayaa doonayay inay Hargeysa yimaadaan balse waxay ka baqayaan arrimo jira awgo daawadayaal fanaaniinteena caanka isla markaasina ay qaar badan oo idinka mid taageeraan waxay ka cabsanayaan in haddii ay Hargeysa yimaadaan jeelka loo taxaabay isla markaasina ay halkaasi ku waayaan lacag badan oo ay Soomaaliland sheegtay in ganax looga qaadi doono qofkii Muqdisho taga lacagahaasi oo gaadhay intii ay ka soo faa'iideen showga ay ku qabteen magaalada Muqdisho ee uu ka mid ka yahay Sharma Boy isla markaasina lacagtaasi oo dhan laga wareegi doono ganax ahaanna loo qaadan doono inkastoo ay barba isticmaaleen maadaama tageen Addis Ababa isla markaasina aanay wax show ku qaban haddana waxa laga cabsi qabaa in waxba looga qaato ganax ahaan intaas waxa sii dheer in la xidhi doono maalmaha ugu horeeya ee safarkooda ay ku imanayaan magaalada Hargeysa maadaama Soomaaliland ay sheegtay in qofku ka fasax qaato marka uu u baxayo magaalada Muqdisho isla markaasina uu yahay qof caan ah oo fanaan ah ama siyaasi ah haddana Najma Nashaad iyo Axmed Aarshe kama aysan fasax qaadan dawladda ee waa ay baxaan kaliyaata labada fanaan haatan waxay ku sugan yihiin magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya oo ay ka soo bixi doonaan ayaamaha soo socda si ay Hargeysa u soo galaan haddaba daawadayaal waxaynu hadda awoodnay in ku kabi karnaa waa duco kaliya daawadayaal waxaan ka codsanaynaa fanaaniinteen caanka aad wada jeceshiin aan wada jecelnahay isla markaasina nagu qaaliga ah inaad ducada ku soo kaabtaan oo kaliya